السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي وادق عبد سنتور كنا بنشي دقمة أفلو كنا صابر باري وحال هاي مشرح وتاجن حلكة قدومية لها deegaanka degmada Afmadow sababaha ugu dhameeyay xilka inaan u soo istaago ayaa ah markii aan arkay baahiyaha deegaanka ka jiro in la helo dhalinyaro dadka iyo deegaanka wax ku soo kordhin kara si loo guulgaaro caqabadaha hortaagan in ay degmadu horumarto. Degmada Afmadow waa degmo qadiimi ah, taariikh ahaan waa xudunta Waamo, balse waxaa dib u dhac aad u baahsan ku keenay burburkii dalka saameeyay. walow orashadii maamulka Jubbaland kadib ay ku talaabsatay horumar la taaban karo, haddana waxaan jeclahay in aan ka sii wado halkii la soo gaarsiiyay si ay degmadu u noqoto mid la jaanqaada dalka intiisa kale, loona gaaro haykalkii degnanimo iyo meeqaamkeedii. waxaa ii qorshaysan inaan wax ka qabto baahi kasta oo deegaanka ka jirta maanta, sida dhisida hospitaalka degmada Afmadow oo maanta bulshada baahi aad u ballaaran ay qabto, iyo qodida ceelal biyoodyo si loo ciribtiro biyo yaraanta soo wajahdo xilliyada jiilaalka. waxaa ii qorshaysan iskuulada iyo goobaha waxbarashada inaan juhdi geliyo si loo horumariyo tayada aqoonta iyo waxbarashada deegaanka. waxaan kor u qaadi doonaa kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada si ay bulshadu u helaan wax qabad la taaban karo oo hufan. waxaan u ballan qaadayaa inaan bulshada u adeegi doono si hufan ay ku jirto sinaan iyo cadaalad, meeshana aan ka saari doono wixii nin jeclaysi ah. waxaan ka shaqayn doonaa midnimada ummadda iyo wadajirkooda si xilkasnimo ah. bulshada waxaan ka codsanayaa inay codkooda igu taageeraan si aan degmada u gaarsiiyo nabad iyo baraaro. Ilaahay tawfiiq. waana ku mahadsantihiin sida diiran aad ii garab taagantihiin shacabkayga kuna deegaanka. habiba kala geeyay kika saarila waakan nabadgaliya waakan isku keenay waakan Karima yo karama kusalaye, karme ya noqo.